koobka adduunka waxa la xaday laba jeer. koobka adduunka waxa la qabtaa 4 sanaba mar wuxuuna soo bilowday sanadkii 1930 waana tartanka ugu weyn ee laga qabto dunida. dadka daawada waxa lagu qiyaasaa dadka dunida ku nool haafkooda oo tir ahaan noqonaya ku dhawaad 4 bilyan oo qof. halkan waxaan kugu la wadaagayaa 5 waxyaabood oo cajiib ah oo ku saabsan World Cup-ka sanadihii la soo ciyaarayay. intaanan guda gelin muuqaalka wadankii aad u taageersan tahay oo isleedahay uu ku guuleysanaya sanadkan 2022. midda koobaad, koobka World Cup-ka la siiyo wadanka ku guuleystay koobka qiimihiisa waxa lagu qiyaasaa lacag gaaraysa 20 milyan oo dollar waxa uuna ka samaysan yahay dahab. isinkiisa ama naqshadiisii ugu horeysay ee koobka waxa sameeyay artiste ka soo jeeda dalka France oo lagu magacaabo Abel Lafleur. waxa uuna koobku soo maray marxalado kala duwan ilaa uu soo gaaray sida uu maanta u egyahay. midda labaad, intii la qabanayay koobka adduunka kaliya waxa ku guuleystay 8 wadan oo kaliya waxaana la qabtay 21 jeer. Brazil waxay ku guuleysatay 5 jeer, Jarmalka iyo Talyaaniga kiiba wuxuu ku guuleystay 4 jeer, Argentina, Uruguay iyo France kiiba wuxuu ku guuleystay 2 jeer, halka Ingiriiska iyo Spain ay ku guuleysteen hal mar. fadlan like saar muuqaalka haddii aadan weli saarin, mahadsanid. midda saddexaad, ma ogtahay inaan la qaban wax kooba intii u dhaxaysay sanadkii 1938 ilaa 1950 sababtoo ah markaas waxaa jiray dagaalka labaad ee dunida kaasoo dhacayay sanadkii 1939 ilaa 1945 wuxuuna koobku dib u bilowday sanadkii 1950. midda afraad, koobka dunida waxaa la xaday 2 jeer. mar waxaa la xaday 1966 mar la sameynayay bandhig dadweyne oo lagu sameynayay hoolka Westminster ee magaalada London waxaana xaday 2 tuugo kuwaasoo dalbaday lacag gaaraysa 15,000 oo pound, laakiin maalmo kadib ayaa dib loo helay koobka. 17 sano kadib 1983 ayaa mar labaad la xaday koobkii waxaana lagu xaday wadanka Brazil, laakiin nasiib xumo markaan dib looma helin waxaana la soo qabtay 2 nin oo looga shakiyay laakiin wax cadeyna waa lagu waayay. waxaa la sheegaa in la dhalaaliyay koobkii oo lagu iibiyay dahab ahaan oo uu ku iibiyay nin Argentina u dhashay oo dahabka ka ganacsada suuqa madow, laakiin isaga uu diiday eedaasi oo wax cadeyna waa lagu waayay. midda shanaad, intii la ciyaarayay koobka dunida waxaa la dhaliyay 2548 gool. ciyaaryahanka ugu goolasha badan koobka dunida waa Miroslav Joseph Klose waana ciyaaryahanka Jarmalka u ciyaari jiray wuxuuna dhaliyay 16 gool. ciyaaryahanka labaad ee ugu goolasha badan waa Ronaldo Nazario kaasoo ka soo jeeda Brazil wuxuuna dhaliyay 15 gool. yaa ku guuleysanaya kula tahay koobka dunida.